gurigii raashinka la cunaa wuxuu ahaa wax oo aniga markino igu daran yahay wax fiican ima siinayo ninka markaas wuxuu igula dagaalsan yahay gabar yar ila dhalatay oo aabahay iyo ani iyada isku aabisko aanay marka isaga aabahay dhimanay iyada hal sano jir ay ahayd isaga aaba dhahdaa ana wuxuu ilaahay marka aaba idhe ana aabahay inuu dhinto waa ogahay taas ku dilaya markaas wuxuu ilaahay aaba hadaan dheheen uu idilaya yacnaanaya arbaa mashriisa wuxuu dhahayaa waxaa tahay caasi hooyo wuxuu leeyahay mar walba gabadhaada waa gabar xun waa saan waa kan hooyo waa qabanaya waa jorbine waa qaniinay waa dile wixii ii dira hadda iraada ma qaban karo aniga caruura ahay waxaas ma awood hadaan dhaho waxaan ku idhahdaa hooyo ula ii qaadana waa garaacee markay ii garaacayso ii faadsanayso ilmaha yararka waqtiyada oo ciida waxay jecel yihiin in labis loo gado ciida ay ku bashaalaan ay qoslaan ilmaha markay ciida ayaan aniga waa ogaa الله وحنا والله هاي dar la ii gado hadday dhacdo noqoto in dhar la ii gadana hal xab ugu dhee la ii gadaa ama dharkii hooy ka duqoobo oo diracmanka iyo marooyinka ay xirato oo ka duqoobaa la ii gaabiya asaan isiyaa dhar suuq ligama keeno qof noloshan samra ku dareemaya ku saab marka waxaan ku iri sida saas u ahaa waa iska soo weynaaday xoogaa adiga waxaa soo gaaray sanadkii sagaalaad aabe adeerkii oo hooyo qabay hooyo dilay hooyo markii dambe hooyo garaacay uu tumay oo keliyaha ka tumay iyada kooma gashay xabsiyaa la geeyey hooyo waa furiyey waa naga taga isaga dhanba hooyo doon fur hooyo waxa waaye iyadana ma arkin oo ma shaqayn karin oo dhaawaca keliyaha ka gaaray aniga waxaa isku day marka hooyo inaan garab siiyo maqaayad iyo meelaha laga shaqeeyo naaga hooyo u timid waxay dhahday gabadhaada xoogaa bay soo ronaatay sagaal jir waaye maxaa la yidhahdaa waxbay i qaban kartaa isii maqaayadda ay ku kaalmaysay sidii aan maxaa la dhahaa maqaayadii aan kasoo shaqaynaa ilmo yar oo caruura ahay qofkii wax markay cunaayaan wax ka afiya malaysiinaye qofki wax cunaayo baahiya ay haysa daran waxaan leeyahay habaryar baahiya ay haysa wax isii na haddaa ku siiya adeeg sidii aan dhibaatadii iyo rafaadka iskaga soo jiray 3 bilood 4 bilood marka anaagta la soo joogo waa kaysan waayo waa ka soo latay guriga imaaday gabar aniga ila dhalatay oo hooyo dhashay oo hooyo urdeeda ee weyn ah oo 8 sano aniga iga weyn ah la guursaday iyadii qadamal iga dhigay shaqaale iyada shaqaale la iga dhigay walaashay ajiib maxaa Soomaali dhibaato dhex taala hayo markii gabadhii aan u shaqaynayay gurigeeda shaqaynayay ilmo yar ay dhashay oo waxaa la dhahaa aan xaarka ka dhaqaaya dharkooda dhaqaaya anigoo tabar lahaynin marka waxaan qabay ijaardi bahal jahdi la dhaho oo ilmaha ku dhaco jaardiga ay ku kacaayo waa mantaga ayaa dhulkaasi seexanaya waa cunug 9 jir ama 10 jir ah muxuu ka ogyahay uur iyo dhalow iyo muxuu ka yaqaanaa haya naya maxaa lama tagaysaa oo dhulka la jiiftaa uur maa leedahay wacad ma arag ma tahay waa idile ficil baraysa igu garaacay waa kasoo carar ah hooya u imaanaa hooya waa isoo jeclayahay iyadana waa idile waa i celinay acuudu billah adiga waa lagu dilaa waa lagu celinaa bile haa marka waa la celinaa waa tagaa meeshii waa iska oynaa meesha musqushaa kale waa iska soo oynaa waa iska soo baxaa meesha maxaa la howl qaban amaan in maharsado habeen mooydo dhar la ima gado naag maxaa la ilmaha booy asad guriga joogto dharka xataa waa loo gadaa anigu dhar la ima gadaay milfii laga baxlay aaxirtaa dhibaato iskaga jiray markii dambe alxamdulilah shaqaalay keentay aniga waa kasoo tagay wallaahi waa adagtay sheekadan gurigaa joogay waxay leedahay adiga gabadhi mala jooga weyninoo wixii la cuni lahaa adaa lagaa rabaa wixii la cuni lahaa adaa lagaa rabaa biilba adiga lagaa rabaa shaqey adiga soo shaqeey ajaayib walaashaa markaa ama reerkay biilka siin jirtay calaashaan markaad u shaqaysay lacag siin jirtay hooye iidaaba dhashee maxay u siin weysay iidaaba dhashee laakiin aniga waa laygu bahdilaya micnaha bahdil waaye oo aniga laygu talagalsan yahay ma fahamti marka alxamdulilah markii saas igu dhacday waa iska soo baxay waxaan isku dayay shaah meelaha la fadhiisto shaaha la ii karinaa
meel la fadhiisana miis la isaara miiska shaashu shubaya shaahi lacag ka soo baxdo waa laga qaadana wax leema siinaya adii alxaasil marka ugu dambeysay oo nolosheedii oo yani marka dambeysay intaas dhibaatada ku jiro waa soo kabcay adiga marka dambe alxamdulillah waxay dhacday in maaragtay aan gaaro heer aan aniga shaqaysan karo heer aan wax qabsan karo meeshii maxaa lahaa miisa aan ii camir oo maxaa lahaa sigaar iyo nacnac iyo adiga bagaash camal miiskii gadgadi jiray wax igama soo wixii ka soo baxo waa laga qaaday waxba lagu karina raashin lagu qabsana waxba lagu sameeyna leedahay waa laga qaadaa wax iguma qabto adii alxaasil kiilkii adiga oo dadka shaqeynaya waa kaleystay oo mid aniga xornimo u shaqeysanaa wixii baa laga qaaday aan noqday alxamdulillah waan soo joogay markii dambe waxaa dhacday in aan waxaasoo dhan baa iska daayo ninaa guursaday meesha aan ku neefsan lahaa ninka aan guursaday wuxuu igu sameeyey marta ninka aniga waa ku rabaa idhaa makurabiyaa dhahay bahal madiida la yidhaahdo igu akhriyay mataqaanaa oo igu kaxaystay madiidada maxay tahay marka madiido sixir waaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علشان هدي تاي نمر وي راعيسا مديده ساليدا adkaatay haya marka uura isla markiiba uura yeeshay wuxuu idhaanayaa aniga mataqaanide uu kala wad ajo haya meeshi sidii irfaadkii awal aqab jiray agoonimada irfaadkii waxa iisi dheeraa oyday maanta waxaas igu maqashay waa idishay dhabarkii dhaawac iga gaarsiisay ilmaha inay iga soo tuurtay rabtay dhabarkii iga rifatay dhaawacii dhibaatada igu badatay ilmihii waa soo dhici waayeen ilmihii maxaa lahaa rafaad iyo murugo iyo ciil sida maalin walba waxay riman tahay qijaamada heblow waale way udcaynayaan hooyo way dile qof aan hadli kar ma lahan waaga doo baryo ilaa qoraxda ay ka dhacdo waxa u jiifaa sida ma camal laano fikirkii iyo murugadii ay ka badatay nafis walaal macaan warcaawa sheekooyinka adagka haya nafis waa jiifanaya hooska subaxdii aan jiifanaa waa ka kacaa hooska galabtii aan jiifanaa wax ma cuno wax ma cabo dhiig la-aana igu dhacday waa cunugii biliya la igu dhalaya gaaray waa fooshay waa dhalay koomaa galay haya markaa kooma galay waa isfureynaysaa wicilkii oo maaragtay dhulka keensatay ee maaragtay ay ku qarinaysaa alidhaha haya oohinta joojiya saaxiiba leef kapslanaya oohinta joojiya haya marka alxamdulillah calaa kulli xaal wiilkii waa wiilaa dhalay wiilkii waa iska haystay dhib kastoo aa soo maray oo soo horfaaday oo soo silcay waa ka soo baxay calaa kulli xaal waa kaasaa saasay ku dhamaatay ilaaha ku gargaaro haya waa mahadsan tahay malika soo dhow malika ma joogtaa malika ma maqashaa asuu ama malika walaa adkaatinyo samira faadimo ku socod faadimo ها si fiican u fadhiista oo sheeko jacaylka waxaa waa laga daarahay jacaylka ma iga hormartay waay anigoo yarba waxaa laiga kaxeeyey qurbaha deetana markaa qurbaha anigu halkaasaan ku dhasho hooyaday xitaa hooyaday faamilkeedu ay degan yihiin markaa hooyo ay kaxayso waxaan tagnay wadankii hooyo markay kaxaysanaysa waxay kaxaynaysay way caawinaysaa marka anigu iskuul baan ka dhiganaya qurbaha deetana wadankii baan tegay iskuul baan ka galay waxaan ka galay madrasad waxaan ka galay maxad shareecada ah xagga diintana aad baan ugu fiicnayo waan jeclaa hobbigayga ahaa inaan qabto hooyo markaa tiim faadimo ma joogtaan tiim faadimo ismujiya ku soco hooyo markaa waa maamo aad u kulul oo in meelaha lagu leexleexdo iyo in meelaha is istaagay waxaasoo dhan ka gubata doon mushakiilo walaasheed